isku soo laabasho wanaagsan. Waa Cabdiraxmaan iyo Lascaanood ku dul hooganaysa maanta seefta. Lascaanood sida aan aniga akhbaarta ku hayo waa dad gob ah, weliba gob dhashay. Dee maantana waxa ka dhacay waan u jeednaa. Ma garatay cimaamadan maanta ka dhacday, oo weliba cimaamadaas oo weliba Somaliland ay ka riday, oo meesha keliya aysan ka jirin marka Soomaali la dhaho faquuq. Ma qofkani waqooyi uu ka yimid, ama koonfur buu ka yimid, ama meel kale uu ka yimid. Soomaali hadduu yahay waa wadankiisa, lagama xigi jirin. Laakiin hadda maxaanu aragnaa in dad Soomaali ahi oo weliba aan ajnabi ahayn la tarxiilay sidii Sacuudiga samayn jireen. Waxaan soo xasuustay sidii uu Sacuudi u geli jiray Soomaalida ama ajaanibta, Eritreanka, Etoobiyaanka, Soomaalida kale, Kenyaatiga. Soo maanta waxay u eg tahay in Somaliland qaaday wadadii burburka inay qaatay ayay Somaliland caddaynaysaa. Haddii wax la xirayo xuduudan Wajaale maa la xiro. Wajaale ilaahan kugu dhaarshay, Wajaale markaa istaagto yaa khalqiga meeshaas maraayo ma malayn kartid. Haddii la tiriyo Soomaalida iyo ajnabiga yaa ka badan. Ta kale hadana meel dheer ha aadin. Sifeen marka wax sifeenaysa waxaa laga bilaabaa caasimadda yaa laga bilaabaa. Hargeysa hadday wax sheegayaan, Hargeysa koonfuri. Dee koonfur waa naqaanaa, ma garad. Hal qabiil ma dego, sida Hargeysa hal qabiil ma dego. Laakiin waxa halkaas Lascaanood lagu maagay anigu ma fahmin. Sheekada sheeko aan iga weyn waaye. Wajaale haddaa aragto inta qof ee bini aadan ama ajnabi ah ee soo gelaysa ma malayn kartid. Oromadu ajnabi miyaysan ahayn goormay Somalilander noqotay? Etoobiyaanku miyaysan ajnabi ahayn goormay Somalilander noqotay? Xitaa wax kale iska dhaafay, Wajaale in degan bas markii la fiiriyo yaa markii waxay ka badan yihiin Soomaalida kale. Waxaa arkaysaa qof ajnabi ah ama Etoobiyaan ah oo asagii meesha ku dhashay, ma garatay, wax ku bartay meesha, waalidkiis meesha degan yihiin. Inta ku dhad magaa Wajaale ku leeyahay, meel kale ma yaqaan. Siibo Wajaalada Somaliland yay aad iyo aad ugu badan yihiin. Wajaale dhinaca Etoobiya dee inta badani waa iska mixed, laakiin waxaa aad iyo aad u badan dhinacani Wajaale oo Somaliland. Haddii wax sheegaan dhankaas baa u baahan sifayn. Laakiin dad Soomaali ah oo wadankoodii joogo in la raafo, weliba waxaa kaaga darane dadka la raafay waa dad aan dadkan xoogooda maalo oo shaqaysto oo howlkarka ah weeyaan. haddana hal la raafo weligaa la israafi jiray. Laakiin qofkii haddana in xaqiisi la siiyo, aqalgal ma noqonayso. Awal waxaana ka dhaadhicin jiray waqooyiga ayaa gob dhashay. Laakiin iminka cid aan ka yeelayo waqooyiga gob dhashay ka yeeli maayo. Because of gobta waxaa lagu yaqaanaa haddii la diriro ma aarsato. Hadday xoog badan tahay way cabis badan tahay. In lagu dul noolaado ogashahay. Soomaalinimada wax ka yaqaanaan. Awal waxay soo istaagi jireen Soomaaliya annagaa keena, annagaa calanka idin dhibna, annagaa kan. Haddii aad kan tihiin Soomaaliya iyo Soomaali waa kala labo. Soomaaliya markaad dhahdo waa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Soomaalina markaa dhahdo qofka bini aadanka ee shakhsiyadiisa lagu gartaa. Laakiin Soomaalinimo inaad ka faanto wax macnaa ma sameynayso. Soomaali ilaah baa kaa dhaliyay. Laakiin dadka inaad raafto haddana weliba dadka maatida dee waa wax laga xun yahay.
awal baad dadkii waddanka deganaa aad laynayseen ood liinta jeel ku cabaayeen haldoor gaalayseen ma garad xitaa hadda haddii xataa kuwa koonfur jiro lasoo celiyo oo waqooyi lagu soo celiyo waa xiraysaan intee dhigana sheegay kuwa koonfur galbeed jiro oo reer waqooyiga ahi haddii lasoo celiyo xabsiga lintu ku cabaayaan nolol kale ma haystaan dadkiinii baa nolol u diideen dadkiinii baa idinka carari lahayn hadday nolol meesha ku haysaan hadday dowladda jirto nafar isaaq kuma noolaadeen koonfurta ama nafar reer waqooyi kuma noolaadeen ma garad reer waqooyi markan in yar baa heshay oo weliba xataa dhammaantood ma wada xumo in yar baa heshay intaas yar baa ummadii oo dhan galaafatay miyaysan diin ya lahayn caqlina lahayn garaadna lahayn mise wixii waaba marqaam laan oo meesha waxbaa ka socda anigu ma fahmi sheekadaas ma wajay isa meesha waxaa marna ka tirsaa marna meesha waka haddii mari mu socdon horaa u xiriteen dasraafayada gabka dhaxa idinkuma haysatow aaway dadkii somalilanderka ahaa oo caqliga lahaa ya oo 50-50 aan ahayn oo 90% caqliga lahaa aw ma dhinteen tani yahow intaas ka dhaaftaan siyaasad furfuran oo lamiina lahayn haddii dimuqraadi la dhaho maanta muqdisho ayan ka dimuqraadisan muqdisho maanta waxay ogashahay inaad ku noolaataan canshuurtaada cuntaan wax walba idin siiso laakiin idinka ma ogolidin ayaan dhexaas markii maxaa ahaday la dooranayay aqalka sare ee reer waqooyiga ninkii ugu caqliga badnaa ama professorka ahaa yaa wuxuu leeyahay waa idin dhaarinaya waan idin dhaarinaya waxaan idinku dhaarinayaa kow inaad ka shaqaystaan midnimada reer waqooyiga waa qodob aada u muhiimsan kow laba haddana wuxuu leeyahay waa inaad ka shaqaysataan soomaalinimada ka shaqaysataan buu leeyahay ereygaas muuqaalka ninka raba wuu daawan karaa waka marka haddii professorkiini noocaas uu yahay aqoontii diineedna asaan ka tihiin dee arono meesha u socotaan ma garata garan mayno meesha u socotaan waka meesha u socotaan garan mayno marwacadnina waa nooshahay qaralahaasi ma garat muuse bicin waa idin joogaa saleebaanna waa idin joogaa idinkoo qoxna waa joogtaan xumaantaas dhanna waa isku raacdeen in xitaa 700 oo qof xitaa aan la siinin xitaa sooriyo xataa sadhab xitaa wax yar oo xitaa nooli ah aan la siinin war martidu sharaf bay lahayd ciisi iyo karaamay lahayd awa gobnimadii waqooyi gobnimo uma jeedee dhibka aada isku hayseen iyo aada la soo gasheen koonfurta dib iskugu noqda reer waqooyi oo dhan ma wada xumo in yar baa haleynayso marka waa idin salaamayaa reer waqooyi waxaan canaan bay iga tahay sidaan isku dhaama maxaa ahaday mujaahidiinta qaar wanaagsan baa ku jiro oo xitaa naxariista yaqaan